وتهداوديال أفريكا تي في 4 أياد نقل سعوتان تي فيga waxaa sharaf u ah in uu waraysi kooban la yeesho maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku yimid dalka Suudaan iminka waxaynu ku sugannahay gudaha jaamacadda Afriqiya Caalamiya idaacadda Afriqiya jaamacadda taabacsan iyo Africa TV 4 ayaadna naga daawanaysaan mudane madaxweyne Africa TV 4 waxa uu ka mid yahay koox TV ah oo la hadla Afrika luqada Afrikana ku hadla Africa 4na wuxuu ku hadlaa luqada Soomaaliga marka hore sharaf ay nooteen in kugu soo dhaweyn TV ku soo dhaw maasantiin wata madaxweyne markuu ugu horeysa waxaan ku weydiinaynaa socdaalka ku timid dalkan Suudaan qaybtiisa arrimaha bulshada maxay tahay siyaasadda marka laga soo tago maadaama TV-ga arrimaha bulshada focuska uu saaro bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad iyo aad u mahadsantiin Suudaan booqasho ku nimiday rasmi ah aad iyo aad lagu soo dhaweeyay dalkan Suudaan iyo Soomaaliya cilaaqaad aad iyo aad u ballaaran ayaa ka dhaxeeya cilaaqaadkaasi dhinacyo badan uu leeyahay dhinacaad iga weydiisay yani dabcan dadka Suudaan waxa ugu weyn waxbarashada xaggeeda kaalmada ay Soomaaliya ka kaalmeeyaan oo maanta meel aad iyo aad u sareysa maraysa haddana maraysa in jaamacadihii Soomaaliya iyo jaamacadihii Suudaan la isku xiro waad ogtiin maanta Soomaaliya waxaa jooga dhakhaatiir badan macallimiin badan injineero badan oo dalka Suudaan ka soo baxay fursadaas Suudaan Soomaaliya ay siisay caalamka meelaha laga sii aad ugu yar yihiin marka arinta in la sii xoojiyo oo la adkeeyo ayaa qayb weyn ka ahayd booqashadan wata madana madaxweyne dalkan Suudaan waxa ku sugan aqoon-yahano fara badan oo wax ka barta in ka badan 5,000 arday waxa ka mid tahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed nin aqoon-yahana oo madaxweynihii dalka ay tahay marka maxay tahay fariinta u diraysid ardayda Suudaan joogta iyo kuwa kale guud maadaama dalka baahi badan uu qabo aqoon-yahano inay helaan aragti dheer sidoo kale waxaan rabaa inaan ardayda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa Suudaan jooga aan u sheego yani fursadaad hesheen oo dhalinyaro badan aad iyo aad u tiro badan oo Soomaali ah aanay helin dhowr milyan dhalinyarada Soomaalida lagu qiyaasaa intaan hadda aad fursada hesheen waa dhowr kun marka fursadaas aad hesheen inaanay dayacmin oo aad ka faa'iideysataan oo waxbarashada sida ay tahay oo rasmiga aad uga faa'iideysataan waa rabnaa waan idinku adkeynaa oo kula dardaarmayna waxaa kaloon aad iyo aad idinku dardaarmaya gaar ahaan ardayda Suudaan joogtay in nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka iyo maxaan ku raadaya habnoolaadka dalkan aad loo ilaaliyo nidaamka iyo shuruucda dalka in la ixtiraamo hab dhaqanka iyo maxaan ku raadaya dhaqanka dadka Suudaaniyiinta ah in aad loo ixtiraamo in maxaan ku raadaya yani la noqdo sida ayaguba wiilashoodii oo kale inaad tihiin iyo gabdhahoodii oo kale inaad tihiin ay gacan idinku fidiyaan idinkuna inaad u dhaqantaan sidaas oo kale aad iyo aad ay muhiim u tahay dhaqanka iyo taqaaliidda iyo shuruucda iyo qaab nololeedka dadkan iyo dalkan ay leeyihiin in aad iyo aad loo ilaaliyo taasa ugu muhiimsan oo aan aad iyo aad idinku adkeynaya wata maadaama nin aqoon-yahan aad tahay dalka Soomaaliya muddadii aad xukumaysay ma isleedahay qaybta waxbarashada horumar ay Soomaaliya gaartay ama wax badan waqti waa siisay iyo fikir waxbarashada inay horumarto si loo helo dad wax bartay dabcan Soomaaliya meel aad iyo aad u fogay ka timiday waxbarashada Soomaaliya waxay u badan tahay waxbarashada gaarka ah oo gaarka loo leeyahay dugsiyada jaamacadaha intaba sanadkii 2013 ayaa ahayday markii ugu horeysay Soomaaliya laga furo dugsiyo public ah oo dawladdu ay leedahay oo macallimiintooda dawladdu ay mishaar siiso oo ardada dhiganaysa aan lacag laga qaadaynin fee yani ama waxa afqalad ugu yiraahdo tuition fee aan laga qaadaynin markii ugu horeysay ay ahayd sanadkii 2013 oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dib loo furo ayadoo leh 6 kulliyadood 6daas kulliyadood hadda dad arday ku dhow 1000 arday ku dhow ay dhigtaan oo aan ayadana lacag laga qaadan aan lahayn tuition fee aan lahayn sidoo kale ardayda dugsiyada dhigataay sidoo kale 200,000 oo arday ay ku dhow yihiin ayagana sidoo kale laga maado marka wali baahida ardaynimo ee xag iskuul xag jaamacadeed jirta aad iyo aad ay intaas uga ballaaran tahay laakiin waa bilow marka bilowgaas fiican uu socdaa sanad walba way sii kordhintoda dawladda Soomaaliya waxa waajib ku noqonayso ku ah awoodeeda markii saamaxdo dhalinyarada Soomaalida oo dhan inay tacliin siiso wata tacliinta marka laga soo tago mararka qaar waxa laga yaabaa in ardayda marka ay waxbarashada dhameystaan ay jirto cabasho dhanka shaqo la'aanta arrimaha siyaasaad idinkaga degsanaa oo injaas aad ka gaarteen iyo kuwa idinkaga degsan hadda kadib ma jiraan wallahi dabcan dalku markuu soo nabadoobo ba dib u dhiskiisa imaanayo dib u dhisku markuu yimaado shaqooyin badan abuurmayo dawladda Soomaaliya dalka inay nabadayso fursado shaqo ay abuurto
siyaasadaheeda ayay ka mid tahay, siyaasaad cadcaday ka leedahay. waxaa intaas dheer waxaan aad iyo aad uga shaqaynaa caalamka kale sida caalamka carabta ee walaalaheen ah in ay dhalinyarada soomaalida fursad shaqo siiyaan, iyadoo hadda sacuudi arabiya noo ogolaatay, qatar sidoo kale muxuu ahaay ogolaasho mabda ah oo farsamooyinka iyo wixii iyo ay ka dhiman yihiin aan ka qabnaa. imaaraadka muxuu ahay wadahadal aan la wadnaa in dhalinyarada soomaalida banaankana fursado shaqo looga abuuro, dalka gudihiisa iyo dib u dhiskiisana fursado looga abuuro. marka aad iyo aaday muhiim u tahay arrintaas, laakiin dee shaqa oon hawl u badan ay naga rabtaa iyo dulqaad, waana gaaraynaa insha allah. waa tahay waxaan rabaa anigoo tixgelinaya waqtigaaga qaaliga ah iyo howlaha ku yaal su-aashii ugu dambeysay inaan ku weydiiyo dhanka shaqa abuurista marka laga hadlayo sacuudiga soo hadal qaaday doodo badan ayaa jira, maxaa ku qancin lahayd dadka ku daawanaya ee mawduucaas ee hadalka ka keenay? aad iyo aadan dee uga xunnahay doodaha qaarkood sida loo dhigaayo lasoo qaadayo gabdhaha soomaalida ah. gabdhaha soomaalida haddaba way safraan, keligooday safraan, ayagoo dowlada aanay dirinay safraan, ayagoo maxaan ku raha xuquuq ay leeyihiin cid xuquuqdooda ilaalinaysa aanay jirinay safraan, waa tahriibaan, badahay maraan, yamanoo dagaal ka socday inta ku dhex lugeeyaanay sacuudi arabiya muxuu ahay galaan. waxaasoo dhan hadda way dhammaatay, dowladdaa kafaalad qaaday, mas-uuliyaday leeyihiin, xafiisyo iyo dad mas-uuliyiin ah ayaa daba socda oo xuquuqdooda iyo waxooda ilaalinayo. marka waa sidaasaa arrimahaasi ma jirto gabdhaheenna wax dhibaata. dabcan dee haddaba dhibaataa soo gaarta, lakiin midda hadda soo gaarto sharciga sharciga ka baxsanay dhibaata ku gaartaa, laakiin sharciga dhexdiisa dhibaatadii kugu gaarto si aad u maaraysaad leedahay. annagu waxaan rabnaa dadkeennu sharciga dhexdiisa inay ku noolaadaan, ay ku shaqeeyaan. haddii dhibaata ku gaaraysana sharciga dhexdiisa dhibaata ku gaarto si loo daba qabto iyo si loo xuquuqdooda loo raadiyay leedahay. halka hadda ayagoo tahriibiya duurka marayo lugaha inta laga xirta la adoonsado oo meel lagu haysto. marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka baxaan waxaas. gabdhaha soomaaliyeed way shaqo tegayaan, way soo shaqaysanayaan, ayagoo sharaf iyo karaamo leh ayna dalkooda kusoo noqonaya hadii alla yihahdo. dowladda soomaaliyana way ilaalinaysaa sharaftooda iyo karaamadooda. waa tahay aad baad umahadsan tahay. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo waraysi kooban siiyey Africa TV4 oo aad daawanaysaan iminka iyo idaacadda Afriqiya oo taabacsan jaamacadda Afriqiya alcaalamiya. madaxweyne aad baad umahadsan tahay. jazakallahu khayr. barakallahu fiik.